hadda waxaa khudbaha soo jeedinayo gabar dhalinyaro oo magaceeda ah Nasra Xaaji Xuseen Ibraahim. Nasra waa gabar oo da'yar oo 18 jir ah laakiin saasay tahay wax badan soo martay shaqooyin badan kala duwan soo qabatay mar ayadoo beer falayso mar ayadoo sambuus wareejinayso haddana waa mechanic. Nasra marka waxay aaminsan tahay hadda Soomaali mar walba dhaho dhalinyaro ugu badan haddana ay shaqo la'aan jirto anay sameynaha xaq u leeyahay ayadoo shaqo la'aan ahaato marka mar walba jawi u bedelaysaa marka wixii ku qasbay noloshan iyo macnaha kartidan ayada noo faafinaysa la sameeyo. السلام عليكم. مركز مغشان جور مكانك وياطيها. وحسب إن سوماليا بقول كي بتطلعت النشان وادليرو ما يستان وحشقة سيب قبلها أدبلوا لي ذا وحلا من سيها هنا قبلها وحبقى بنكرين وحلا من سيها هنا قبلها الله دلي وكليا هنا يقولوا جوجان عن جراء الدوان هاي نقدان وحكر إنه بقبن كريمبو أيك مركز سيدا ديان كودي إدتكي لا شيء إدتكي ودوا هدي بتاس كذا دعسيان ويأمن أيكني أنيقا waxaan ahay mechanic waxaan rabaa gabdhaha adduunka jooga iyo kuwa dunida ee dagaalada saameeyeen wadamada dagaalada saameeyeen joogaba inaan u noqdo tusaale inay qaban karaan shaqooyinka ragga waliba shaqo kasto haddii ay hamigoodu tahay inay wax qabsadaan. magacaygu waa Nasra Xaaji Xuseen Ibraahim waxaan ku dhashay gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne 21 Oktoobar 1998 waxaa aabahay iyo hooyaday iyo waxaa ila dhashay oo keliya 2 wiil iyo 4 gabdhood ayaan nahay. aabahay wuxuu ahaa dawladdii Maxamed Siyaad Barre dawladdii aadan cadde askari gaashaalo dhaxaa. aabahay ma uusan dhalin wiil aniga iga weyn oo keliya waxaa iga weyn gabdho waxaa igu qasbay inaan noqdo inaan wax u qabsado. aabahay waa ninka aabe 9 sano ayuu jiraa. aniga markii aan gurigayga joogo oo aan hooyaday aabahay aan la joogo aabahay waa nin waayeel ah ma jiro cid caawinayso oo garbi siinayso wiilashii la dhashayna wiilkiisa curadka ugu weyn waa 15 jir ma jiro cid kaleento oo aan caawinayso sidaa daraadeed waxaan ku dhiiraday inaan wax qabsado wax un ha noqotee. aniga waxaan dugsiga dhexe iyo dugsiga hoose baan kaga baxay magaalada Beledweyne dugsiga sarena magaalada Muqdisho. aniga shaqooyin badan ayaan soo qabtay beer ayaan soo falay oo gacantayda ayaan ku falay shaqaale gelimaaya gacantayda ku falay meelaha. sidoo kale inta aniga waxaan soo jaray dhuxul macnaha dhuxusha aniga geedka ma gooynin balse geedka dhalinyaro ayaa ii jartay laakiin aniga waxaan ku qasbanaa inaan qaado oo aan dhuxushii soo raro waxa la yiraahdaa meel banaan la isku keeno Soomaan meeshaas geey ina gaar dameer qabsado aan awood isu yeelo aan sameeyo. sidoo kale aniga markaan yaray 8 jir anigoo waxaan sameyn jiray sambuus ayaan subaxda hore dubi jiray gilinka dambe iskuul ayaan dhiga jiray si aan reerkay wax u caawiyo. sidoo kale hooyaday way xanuunsan tahay xanuunaya iska qabta marmar sidaa daraadeed waxaan ku dhiiraday dhexdu xirtay in nolosha qoyskayga aan wax ka bedelo in aan wax taro inaan noqonin dhagax la dhaliyo meel iska leh inaan wax dhaqaaq sameeyo. marka magaalada Muqdisho aan imaaday waxaan raadiyay shaqooyin shaqo walba aan raadinayo waan noogay. hooyaday iyo aabahay markaan guriga soo baxay waxaan dhahaa hooyo shaqo raadsanaa way soo duceynaa ilaahay khayr ku sii gabriyeed ordax markaan shaqooyin qofkii aan ka rajeynaa u imaado su'aasha koowaad weydiinaa waxay tahay shahaado jaamacad ma haysto ilaan 75 dhalinyaro jaamiciin ay joogto oo shaqo laabo aniga oo dusar la maroyo yaa shaqaysina. sidoo kale inta dhibka kale oo haysto waxay ahayd markaan qof u tago mas'uul aan dhahay shaqaan u baahanahay waxay doontaa aad wax u dhib badan wuxuu leeyahay yaa damiinka noqonayo anina qabiil ma qanina qabiil raadina waa ka faanaa. waxaan sidoo kale inta markii aniga aan shaqada bilaabayay waxaan waay wax shaqo caawiyo markaan guriga tago waxaan tagaa reerkii oo dhan oo isugayo idhahayo
hooyo maxaa soo heshay maanta marka been ayaan sheegay waxaan dhaha hooyo ninaa heblaan u tagay wuxuu dhahay biri ii soo laabo shaqo ayaan ku siinaa markaas way faraxsan yihiin aniga qolka ayaan galaa hoosaan ka xirana waa iska oynaa ama badda imaana waa qaayilna waa oynaa markaas waxaan dhaha nasro awood isu yeel waxaa tahay qof karti leh 2 gacmood iyo 2 lugood iyo indho ilaahay ku siiyay awood ayaa leedahay qalbi ayaa ilaahay ku siiyay wax kasta waad qabsan kartaa awood isu yeel ayaan isleeyahay maalin dambe waxaan u imaaday khayr allah siiye nin iskale kambaniga muqdisho service magaciisa la yiraahdo cabdikariin cabdiwaxeedar ayaan u imaaday anigoo shaqo raadinaya nin kale ayaa ii keenay waxaan dhahay adaa meelaha mas-uuliyiinta iyo waxaas taqaanida shaqo un yiraahdo markaas wuxuu yidhi aniga garaash ayaan leeyahay qof bilaadan liskama aamino inta ana xataa kuma aamini kariyo ilaa waxaa ka baranaysa markaas waxaan dhahay adeer ilahay dartiis ugu aamin waxaan rabaa dadka kaleento dadka shaqooyinka ii diida iyo dadka waxa igu xujeeyey inaan maalin un waxaan ahay tuso inaan wax qabsan karo inaan tuso kadibna wuxuu yidhi okay waayahay aniga garaashkaana leeyahay kusoo dhawow shaqadana qabso waxaan soo gatay dariis aan ku shaqeeyo dariiska markaan soo gatay subaxda shaqa ayaan bilaab dhalinyarta yiri shaqaynaysa makaanig la nin la jooge waa leegu qosli wartay acuudu billah naag oo makaanig inta ka imaatay maalin waxaa sameeyey dhibaatooyin badan kala kulmay markii aan makaanig noqday waxaan kala kulmay gaariga marka qof keeno horta yani 6 bilood camal barasho aan ahay waayo diyasho soo qabay undish soo qabay lagu dhaaf abu 12 iyo 13 ma keena masaan wax ka isag qof Soomaali uu sheegay biraha qaar xataa aniga magac gooni u baxsaday mina qarnaclay lagu dhaha waxa rabta qarnaclay maxaa waay tii oo qoloc sameysmiya ha keen adeeg gacni qabteen qaar la siiyo wiil badan la shaqeeyay gabdho wiil badan la soo shaqeeyay oo garab qabtay dhibaatada ugu badan aan la kulmay waxay ahayd markii gaari oo qof ay keenay nasra gaariyaas samee leedahay wuxuu ugu yiri ya naag ma gaarigay loo dhiba waraayga dhamaado gaariga oo laabtay shibaas ka dhaay isla markii markuu 2 jeer soo galay inta naga dhamaan anaka meesheen goobta aan ku shaqeynay inta ka dhamaan ayaa cag waxa ka mudi musbaar waa baqda cag wiilasha oo tagay wuxuu kaali cagtan halay bedelo markii cagtan la bedelo oo dhahay cagti waa loo tagay hala gabadha hadda soo xumeynaysa leeyahay doono waa iimaad walaal kaali cagti bedel markaas inaan qabsaday lugta u bedelay lugtii kala ugu xiray markaas waxa dhawa maasantahay markaas uu furo inuu dhibi gaarigan sameeyay marka dhibaatooyin badan ayaad la kulmaysaa shaqadan waa shaqo aad u dhib badan waa shaqo aadan isdhehaynin aad ay u dhib badan tahay qof ku dhiiri kara ma jiro waa lagu niyad jibinaa wax walba ayaa lagu dhahaa aniga markii niyadda ay iga jabto waxaan qabtaa aabahay guriga markaa u laabto waxaan arkaa walaalkay oo igeer oo idhahay buugaa iga dhamaaday qalna oo iga dhamaaday abaa waxaa soo baahanahay hooyaday oo idhihayso biilkii ee intaan waayo aan dhii waayo markaas anigu markaas dhiirigelin ay noqotaa nasro dad ayaa kaa dambeeyo meelaa u laabatid ma laha dadka qaar way iimaanayaan waxay u dhahayaan gabar qurux badan ayaa tahay nin isku guuys maxaa dhibkan ku jirto ma dareemi karaan qalbigayga guuxa ka yeeraaya iyo familkayga nolosha ay ku nool yihiin inaan ka bixiyo ma dareemi karaan waa dad ayka way iska caadi ahaanbo way ku xumeynayaan dadka way ku xumeynayaan waxay ku dhahayaan gabar ragga inay iskaga dhex jirto rabto waayo wax mustaqbal ma laha saan waayo nin walba wax uun kaa sheegaa dadka qaar waxay ku leeyahan waa wanaagsantahay gabar fiican tahay hore u shaqeyso dadka qaarna waxay ku lahayaan ciyaal xaafadada tahay meel ma fadhiisatado marka aniga shaqsi ahaantayda waxaan ahay makaanig waa kan anigoo birihii sameynayo waxaan aad ugu faraxsanahay aniga dhiirigelinta ugu weyn waxaan ka haystaa familkayga maadaama aabahay uu yahay nin waayeela walaalahayna aad u yaryar yihiin cid garab isiisana aan waayey aan ku dhiirada inaan makaanig noqdo oo aan noloshayda iyo mustaqbalkayga iyo dadkayga aan wax u qabto waxaan aad ugu faraxsanahay inaan noqdo gabadhii ugu horreysay ee makaanigada aad baan ugu faraxsanahay sidoo kalento waxaa maanta tusaale u ahay gabdhaha Soomaaliyeed inay wax qabsan karaan inay wax walba qabsan karaan inay niyad iska jibin inay awood leeyihiin inay karti leeyihiin waxaan rajaynayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay wiilasha Soomaaliyeed ay garab qaban doonaan mas'uuliyiinteena iyo dadka madaxda ah Soomaaliya waxaan ka rajaynayaa inay gargaar iyo gacan bay siin doonaan qof walba oo shaqo u baahdo muhiimadda ma aha in qabiil lagu keeno qofkii muhiimadda ma aha in lagu dhaha gabar aad tahay waa liidataa ma ahan anigu waxaan awoodaa wax kasta ay ragga qaban karaan wax kasta ay ragga qaban karaan maxaa yeelay dareenka igu jiro iyo waxa gudahay ka dhex buuxay waxaa ka weyn waxaan qabanayo waxaa ka weynba dareenka gudahay ku dhex jiro marka aniga aad u mahadsantihiin waxaan aad ugu mahad celinayaa
laba qofood oo ah qofkii shaqada i siiyey i aaminay anigoo gabar ah inaan wax qabto ayaan aad ugu mahad celinaa waxaa kaloo aan aad ugu mahad celinaa cabdikariin cabdiwaxeed allaha mahad cabdixakiin oo ah qofkii niyadda ii dhihi jiray waxay dadka udhahayaa dhegaysan dadka guul daraysta ha dhegaysanin hore u soco waxaan ahay aniga hadda waa ii jeedaan amalena gabartoo yarisaas ka ahay waa mahadsantihiin aad waa mahadsantihiin